السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داودياش كنالك aqoon guud maanta halkan waxaan ku bilaabaynaa barnaamij la yiraahdo waayaha BD insha Allah taala qaybta koowaad waxaan marti noogu ah aqoon-yahan Axmed Nadiifta oo ah nin inta badan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Bangladesh saameyn ku leh ana madaxweyne firfircoon ku soo dhaw Axmed Nadiifta barnaamijka ku dhaw walaal aad baad u mahadsantahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدومي عبد الحافظ أد بماسين هاي يجنال كأقوم جود كنت أهانتي أد بدين سلام يا صاحب مقعد أحمد محمد ويين وحن كمل أرضي مصر برنامج كقلن جبسي ودنا كبنغلاديش عاصمة دكا جامعة دفول انترناشنال يونيفرسيتي تاسو أنا ودي وقت جالسة هالسنة الحمد لله رب العالمين وهران دمي سنة كهران دمي haddii aan ka warbixiyo waxbarashadeedii guud aan ka warbixiyo dugsigii hoose waxaan ku qaatay gobolka Sanaag magaalada madaxda Ceergaabo secondarygiina waxaan ku qaatay magaalada Hargeysa digrigeygina waxaan ku qaatay gobolka Awdal caasimadda Boorame baan ku qaatay macnaha aqoonteeda guud waa intaas macnaha waxbarashadeedii dheeraad aan soo maray aad baan ugu faraxsanahay in aan Bangladesh joogo أنا channel كان آدي آد بنقوم علنيا أقوم جود آدي آد بقوم عشان أقوني هن بنجلش وقت بدن بتشوفتي كل دعوين بدن بكرة كلنتي ميت أمر لبا عدوين كجوح يسحب بدن أراد كلا كلنتي ودن كبنجلش ده نلو بداية كده هني هو أرتا بنجلش تواس كمل أرتا أسكجر نسو ودن كلوي ودن كيني أنا هاي صح لبعض تدو بدن وحوي حق اللغة بانيو wax badan aan dhibaato badan kala kulanay adoo raba inaad ma garanaysaa wax u baahato oo wixii aad u baahanaysay aadan garanay magaciisi oo aad Bengali aan ku garanayn horta waa dhibaatada number 1 dabeetana waxa dhacday in aanu isticmaalo mobilka aan internetka daatada lacag ku shubano sax sababtoo ah dhibta jirtay waxa weey qofkii mar hadaadan garanay wixii wax Bengali lagu yiraahdo macna inaad qofkii faraha iskala hadashaan ama inaad sawir tustaa sax waxaan noqotay inaan mobilka intaan u galno Google intaan u galno ka soo qaad macna earphone oo kale aan baan u baahanay inaan weydiino marka kuma fahmayaan earphone isbaan rabaa xarig dhigood kuma fahmayaan marka waxaan noqotay inaan sameeyno inaan ma garanaysaa Google galino sax aan sawir tusno waan gartay dabeetana qofkii markaan sawirkii tusno oo qofkii markaas uu ku diray markaas qofkii garanaya inaad ma garanaysaa waxaan arag sawirku ku fahmaya dibda kale oo jirta oo qodobka kale oo aad xasaasi ah nagu dhacay waxa weeyniyo waayaanimi meel baan rabay inaan aado kooban dabeetana waxa dhacday rikshoole baan sirfuul kuwan baaskiilka kaxayaan sirfuul baasuuk saddex lugood rikshoolaha Bangladesh caan bay ka tahay baan sirfuul dabeetana waxa dhacday niyahow isagu ana حاجة ده لمبرهذا ما كلا قرنا إنه لعكتها. هذه اللغة دودا ما كلا قرنا إنه. صح. إنجليزي إنه كم قرنا إياه. صح. ده اللغة دي الصومالي إنه كم قرنا إياه. صح. مكان واحد علي إن عندي ما قرنا أنا قلبت كي ده ولي وعصبه أقوم بدنا لمبرهذي ما كله. وانقرت. ده تنا مش إنه اسكمل دو بيهد. وانقرت. مكان واحد كوني هو وحنوبه أنا هاي الحلقة يجيسو. ده تنا حجوري بيشتكى بويركان. بيشتكى waxa ka dhiganta 20 tako 20 tako bay ka dhigan tahay 20 lacag xagana waan gartay annan iyo marka bish iyo tulish baan iska khaldanaan jiray waan gartay marka anna waxaan ku leeyahay tulish baan ku siinay 40 sax asana wuxuu ku leeyahay 20 keen buu leeyahay marka annan iyo odagii was qabsanay dib waxaan systemkii runtii wuu yaabay sax wuxuu ninkan أفضل بسيني أنا 20 أنا هحاول ليلة القدر ويجري والله وعجب أنا مركي وحنا فهمي إن سيستم كان العقد عن كل شيء جو إنه يجي خلدني هاي صوب توضق إنك ورك شلي وصوف البوير مركي وأنتوا قصلي وير صوفوا صح مكان أنا بركيسن ويا أنا درك شوية شو ما برا يجوا ما قرنا ساعة صوب توقف دي نيجوشيشن بعد كده حيا قف دي العقد بكده ديسان ما قف ما فرح حيا موقته صوب توقف ربدي ما ديين مكان أنا مركي بالسيستم كل حاجة أنا خلدنا عاي صح وسوق بيشتا كذا يتحلى 20 تقو هادي ما كان وش waxaan ku niyo bishtaas baan ku siinaya waan gar waayahay wuu yiri dabeetana bishtii man siiyo 20kii taqaban siiyo sax isagana markii dambe systemka ku fahmay markaan niyo luqadaas dhibaatada ugu badan oo nagu dhacday horta waa xagga ma garanaysa isfahan la'aanta luqadda baan ugu dhacday waan gartay xagga kale oo culture-keena isna saameyn kale oo nagu yeeshay hadi oo Soomaaliya markaan joognay waxyaabo badan baa jiray masuulo
oo Soomaaliyeed markaad ku dhex nooshahay waxa jiray systemyo kale oo ama Soomaalidu iska yar aggressive aad iyo xoogaa ama waa iska yar kulushahay صح dadkana waa dad wada diiran aad iyo marka kulaylkii Soomaalida iyo diirnaantii dadkan aad iyo baa marka hore baa horta systemkii noo fariisin waayay iskeeni waayay aad iyo laakiin markii dambe dadka ka mid noqon dhaqankooda oo barnaa alxamdulillah rabbil caalamiin hadda dadka Bongolida ah isku system baan dhaqanka hadda naga uga badinaba markaan wax badan baan dhex galay marka Cabdixaafid systemyada badan dhibaatooyinka badan baa naga soo maray wadankan Bangladesh sidoo kale maadaama aad tahay nin khibrad u saaxiib ah wixii tala iyo tusaale waana u reebi lahayd ardada badan juniorka ah iyo ardada seniorka iskugu jira ee ku nool wadanka Bangladesh gaar ahaan caasimadda wixii tala iyo tusaale u reebi lahayd waniyo horta inta badan dadka Bangladesh yimaada ama ka yimaada ama gobolada kale horta dad waxbarasho loo soo diray waan gartay aduu Soomaaliya systemkeedii warkii iska baabiye Soomaaliya noqotay wax noqotay dadkii inay dibadda wada aadaan waan gartay dabadana waxa dhacday in magaalooyinka Muqdisho ama caasimadaha sida Muqdisho kale magaalooyinka kale Soomaaliya marar baan nabadgelyadu way jirtaa sax marka waxa jirtan dad badan oo halka loo soo diray waan gartay oo macnaha system ahaan waxbarashaan loogu soo diray laakiin la sirbalin ku badbaadaan aad iyo marka dadkii halka markay yimaadeen system waxbarasho oo dhameystiran ma garanaysaa looma soo diray marka caqabado badan bay kala kulmeen oo ama ha noqdaan luqadii ha noqoto ama culture ha noqoto horta taasina waa dhibaato kale marka dadka waalidiinta soo diray dadka waalidiinta ardayda soo diraya in macnaha sabab amni dartood inay macnaha dhashooda inay sida Bangladesh kale u soo diraan waxay ku fiicnaan horta bal inay horta bal qodobo u soo sameeyaan oo macnaha in waxbarasho aasaas ah inay u soo sameeyaan ugu yaraan inay college bartaan ama luqad bartaan sababta qofka uu guri iska joogo base laga soo dhashay qofkii oo diyaarsan oo system u socda qofkii in la soo diro laakiin ma qofkii in la iska soo fogeeyo loo haniyo oo xagga naga soo baro kala systemka jireed waxa ay Soomaalida xagga joogtan iyo waxyaabaha baranayaan bani way isku daydaan qof saaxiibka meel buu gelayaa ma garanaysaa jaamacad buu gelayaa faculty buu dooranaya Soomaalida faculty isku wada guraya hadda macnaha future-ka macnaha objectives male waxba male way iska gelayaa hadhowta qofku waxa dhacaysa inuu ma garanaysaa hadhowto jaamacadda markuu dhameeyo waxa dhacaysa in uu systemkii uu suuqa ka filanayay uu noqon ba wax kale ku dhex dhacoba taasi waxa noqonaysa qofku inuu bila shaqo noqdo waxyaabaha inuu bila shaqo noqdo dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inuu xirfadda baa lambar 1 xirfadda lambar 1 skillska sax marka inta badan waxa jira college badan oo koranaya skill hayr waxa ku leeyahay horta xirfad yeelo dabeetana shaqo degdeg ah hel sababta xirfaddu waxay ka caawinaysaa hadda laptop si loo furfuro hadda barato aduu odayna uma baahnin in adeerkan abtigaan uma baahnin magaalada Soomaaliya magaalo kasta waa tagaysaa wax shaqaysanaysaa marka xirfaddu aad iyo aad bay muhiim u tahay qofka inuu xirfad barto marka talooyinkayga waxa kamid ah in horta qofku dad xirfadlayaal ah uu noqdo oo macnaha waxa jirta meelo badan oo polytechnic-da la yiraahdo oo Korean polytechnic-da la yiraahdo marka Korean polytechnic-gaas waxa lagu bartaa xirfado aad iyo aad u badan oo wax kasta ah marka niyo Soomaalida waxaan lahayn polytechnic-ooyinka ama Koreanka lacag badan ma aha $40 $30 meelahaas la iska qaadaa marka waxaan niyo taga 6 bilood wax lagu bartaa xirfado waaweyn baa jira oo ma garanaysaa looga baahan yahay qofku haduu taa kaliya barto guul taagan yahay markaas ardayda waxaan kula talin lahaa xirfadaha inay xoog saaraan intaasaan kula talin lahaa aad iyo aad baa u mahadsan tahay insha Allah waxaan filayaa inay ka faa'iido doonaan taladii waanada aasisay ardayda Soomaaliyeed insha Allah taala hadda waxaan bilaabaynaa 10 su'aalood oo ugu magac darnay dab iyo dhagax waa 10 su'aalood oo kulul oo qofka filanayn master nadiifta diyaar muu tahay diyaar bana sax insha Allah jawaaban waxay noqon doonaan insha Allah jawaabo gaaban su'aasha koowaad waxay tahay buugta aad akhrisay buuggii ugu saameynta badnaa kuma ayuu ahaa walaalow buug badan baa akhriyay laakiin buugga ugu saameynta badan wuxuu ahaa Think and Grow waxa qornay la yiraahdo Napoleon Hill baa qoray laba shaqo buu ka hadlaa wuxuu ka hadlaa personal development-iga buu ka hadlaa iyo self improvement-iga labada qodob buu ka hadlaa wuxuuna xoog ku saaraa sida qofku ganacsi uu samaysan lahaa buu xoog ka saaraa aad u muhiim ah buugaas waan gartay su'aasha labaad haddii aan noqon lahayd madaxweyne shayga ugu horeeya bedel lahayd muxuu noqon lahaa hortaniyo shayga horeeya horta aan bedel lahaa wuxuu noqon lahaa niyo horta ardayda tan dugsiyada hoose dhigta systemkooda dhan baa bedel lahaa sababtoo ah in waxaan ognahay Soomaaliya waxay ka deglaadahay waa dadka
wadankii markuu baabay dadkiina dhaqankooda wuu baabay marka systemku horeyaan qaban lahaa horta waxa weeye macallimiinta iskuulada dugsiyada hoose dhiga iyo syllabuska lagu dhigo baa waxaan ku soo dar lahaa kursooyin badan oo la xiriira haday noqoto macnaha ixtiraamka waalidiinta haday noqoto muwaadinimada kuwaasan xoog saala xagga hoosan ka soo dhisi lahaa shacabka si hadhowtuna iyagoo de waaweyn oo nadiif ah wadanka u soo galaan la saas dhaxad ku qeex naftaada saddex eray waniyo taan waxaan badan ba horta ku qeexi karaa naftayda laakiin saddex hadaan ku soo kooxo ko horta niyo horta waxaan ahay horta motivator lambar horta waxaan lambar 2 waxaan consultant baan ahay lambar 3 consultant kan saddexaad waxaan saaxiib organizer baan ahay ma sha Allah waa saddex aad u wanaagsan su'aasha farad waxa ku leedahay waa maxay hobbigaaga waniyo horta hobbigaaga waxa weeye niyo laba hobbi baan leeyahay sax horta hobbigaaga koowaad horta niyo waa inaan horta reading ka inaan wax akhriyo aad waliba aan xagga kuwa businesska buugta businesska iyo marketingka baan aad u xiiseeyaa tan labaadna waxa weeye inaan kubadda inaan aad u jecel inaan ciyaaro waayahay su'aashanaad waxa leedahay hadii nolosha buug tahay maxaad buugaas magac uga dhigi lahayd waniyo buugaas waxaan magac uga dhigi lahaa learn to earn waxa macnaheedu waxa weeye wax baro si aad u xoogsato marka buugaas aan sameeyna sababtoo dadku qofku in markuu wax barto buu xoogsadaa marka aniga systemkaas learn to earn qoon la baan la shacabka aad iyo magac aad u fiican su'aasha lixaad waxay ku leedahay taladii ugu wanaagsaneed iyo taladii ugu xumeed uu qofku siiyo maxay ahaayeen su'aal horta taladii ugu wanaagsaneed oo horta uu qofku siiyo horta waxay inaan halkan wadankan aan imaado sababtoo ah qofku waa garan kartaa markuu wadamo kale ay badan ay jiraan wadamada soo koriya qofku wuu la koraa laakiin wadan ka hormaro ma garanayso wax laga yaabaa inaad systemkiisa saa ku fahanto ee time qaadanayso maxaan horta taladii ugu fiican leeyay horta inaan Bangladesh inaan imaado beeheed taladii ugu xumeedna waxay ahayd niyow ma garanaysaa waxyaabo badan oo aan rabin inay day noqoto ma garanaysaa dad yiri waxyaabo kale systemyo kale sameeyo oo adag ka wadee صح beeyayro iska xasaasiya noqotay waayay su'aasha dood waxay leedahay tusaale waxa tahay dictator kaliya taliye hadii aad sameeynayd hal sharci kaasoo qof waliba ku qasban yahay inuu raaco sharcigaas muxuu noqon lahaa wana sharcigaas wuxuu noqon lahaa aniga shacabku horta inay lambar 1 horta nadaafada صح ku dadaalaan sababtoo iska ogta dadku degan qof kasta inta area-diisa xaafadda ma aragtay waa in horta inuu nadaafadeeda markuu ilaaliyo uu magaalada u gudbi karo tan labaadna waxa weeye qof kasta inta xaafadiisa intiisa ah inuu ma garanaysaa dhagxaanta iyo laamiye yar ka dhigdhigo waa ognahay waxa jira dhagxaan la isgalgaliye baa jira nadaafada hoos gelaysa marka aniga nadaafada lambar 1 iyo nadaafada saasideed waxa leedahay mustaqbalka magaalada jacayshayna ku noolaatay wani horta mustaqbalka horta magaalada badan waa jeclaan lahaa laakiin magaalada aan ku jecelahay inaan ku noolaado waa gobolka Awdal Boorman magaalada Boorman baan rabaa inaan ku noolaado insha Allah taasaan jecelahay su'aasha waxa leedahay magaalooyinkii meelaha aad booqatay oo dalxiis ku tagtay magaalada ugu fiicnaa meesha ugu fiicneed oo aad jeceshay inaad mar labaad ama saddexaad booqato wani waxa horta magaalada meesha ugu fiicnaato waa khulna gobol khulna la yiraahdo oo ku yaal wadanka Bangladesh ku yaala صح waa wadan boqolkiiba 5 waa biyo صح adduunka wax socda waa fuulaysaa haday noqoto train waa fuulaysaa haday noqoto doon waa fuulaysaa markab waa fuulaysaa adduunka wax socda aadan fuulin ma jiro waayahay su'aasha tobanaad ugu dambayso waxay leedahay hadii aad magacaaga bedel lahayd magacaaga cusub muxuu noqon lahaa magacaaga niyo cusub wuxuu noqon lahaa Yaasiin mu noqon lahaa Yaasiin mu noqon lahaa magac wanaagsan weeyaan Yaasiin mu noqon lahaa saaxiib daawada hadda waxaan soo gaarnay guntii gunaanadkii barnaamijkii waayaha BD oo maanta marti noogu ahaa aqoonyahan Axmed Nadiifta maxaad ku soo gabagabeynaysaa aad u mahadsantiin channelka aqoon guud oo ka shaqeeya inta badan arrimaha ardayda horumarka ardayda Soomaaliyeed ee Bangladesh marka runtii ma garanaysaa channelkan waa channel wax badan ardayda Soomaaliyeed ka caawiyana wana channelka kaliya aan arkay oo isku xira wadankii iyo Bangladesh waa channel uu isku xiriyaa sababtoo ah dadka Soomaaliyeed waxay markasta jecel yihiin inay Bangladesh inay xog badan ka helaan marka channelka aqoon guudna wuxuu ka caawinayaa dadka Soomaaliyeed in ay xiriir fiican la sameeyaan wadankii Soomaaliya iyo Bangladesh aad iyo aad baa mahadsantiin gudoomiye Cabdi Xaafid gudoomiye aad baa mahadsantahay mustaqbalka aad baa mahadsantahay